أبا ما صدق مركلة waxaa jira qodob muhiim ah aad soo saartay adoo kamid ah garaadada gobolada in la joojin doono ganacsiga u socdaalaya deegaanada gobolada Soolsanaag iyo Cayn iyo dhinaca maamulkaasi iyo sidoo kale ganacsiga uu soo gudbaya dhinaca kale ee Soomaalida maadaama halbaba uu yahay deegaanka isku xidhka gobolada kale maxaad go'aankan u sababaysan go'aankani wuxuu ku sababaysan yahay horta waa la isdilayaa oo dadkii waxaa lala dul taagan yahay madaafiic waxaa lala dul taagan yahay barakicin waxaa lala dul taagan yahay in qaabkii noloshu ay ka lunto waxaa la sababay qaxoonti fara badan barakac mid loo kala iyo mid internationalaba in lagu baxo ayay sababtay sidaa daraadeed suurtagal ma aha in ganacsiguna qulqulo isu socodkuna uu iska furnaado wax suurtagal ah ma aha waxaanuna weysiinaynaa in annagu aanu meeshaanu ku naqanaanahay meel istaraatiijiyada oo halbolow ah jamhuuriyadda Soomaaliya aanna ciddii la colaysantahay aysan si sahlan u noolaanaynin ama wax badan arrimi karaan marka waa qayb dagaalka ka mid ah weeye gobolka Cayn waa si buuxda ayay uga hirgashay waxgaradka oo dhan ay isaga yimaadeen iyo ganacsatada iyo cuqaasha isaga yimaadeen barnaamijkaana meel ayaa lagu tiiriyey waxaan rabnaa goboladan kalena inay la qaataan oo ay iyaguna barnaamijkaas ay joojiyaan maxaa yeelay annaga waxaan haysanaa fursado kale oo ganacsatada iyadoo ay kaga maarmi karto iyo dekado kale iyo dhulweyne kale oo Soomaaliyeed oo aad u fara badan iyo waxyaabo ayaan haysanaa taasi iyaga dib ku tahay haddii dagaalka ay si gobonimada u dagaalami lahaayeen oo maxaabiista iyo dadka laga qabto iyo dadka la kala qabsado sidii annagu aanu la dhaqmanay ay ula dhaqmaan raganaga goobtay tahallaay arrinkaasi wuxuu ahaan lahaa arrin weli wax laga xeerin karo laakiin marka la eego qaabka ay dhaqankoodu yahay in meel walba laga adkeeyo waa lagu khasban yahay waxaa ka mid ah waxyaalaha aan baaqan ugu dirnay isdhexmarka ganacsiga security ahaan iyo nabadgelyo ahaan iyo badbaado ahaan dadkayga dani uguma jirto waxaa jira dad fara badan oo badeecadaha iyo dad ahaanba isaga goosha gobolada dalka xaggoodana ka yimaada ama aada oo la qafaashay dad badan oo jidadka ay ku dileen dad badan oo ay qafaasheen waxaa jira rag waday booyado ganacsi oo gaas waday oo ay qafaasheen waxaa jira baasanjar isaga gooshayay gobolada oo ay dileen u dileen sidaa daraadeed danaha securityga dadka yaga dani uguma jirto in ay iskaga gooshaan halkaa markaa sida dadkiina security ugu jirin haddana ganacsigana isagana wax badan oo dana oo baahiya oo anagu aan u qabno ma jirto iyo sababii hore aan sheegay intaba adeer waxaa kaloo sababahaas ka mid ah sidee ayaa la isugu hadlayn karaa oo loo aamini karaa maleeshiyaad maxaabiistii ay qabteen oo nolol ku qabteen ula dhaqmaya si ka baxsan bini'aadnimada sidee ayaa la isugu aamini karaa dad ganacsi ku dhex maraya sidaa daraadeed dadkayga uga digaynaa inay dhex maraan kana ganacsadaan iskuna hadleeyaan haddaad maalin badbaado macnaheedu maaha inaad maalin walba badbaadin ma aha macnaheedu waxa weeye haddii walaalkaa badbaadi waayey qofkaas gobol ka soo jeedna badbaadi waayey dadka kale walaalaha tiin badbaadi waayey qof fartii badbaadi waayey macnaheedu waxa weeye adna maad badbaadin waaye ugu dambeyntii kale waxaa jira gurmud horle oo la sheegayo in deegaanka ay gaarayaan kuwaas oo maamulkaasi uu sheegayo inay yihiin ciidamo dabadda uga yimi sida ay ku doodayaan maxay yihiin ciidamadani bismillahi raxmaan raxiim adeer ciidamada yimid waa hal ciidan waxa meesha jooga meesha waxa isugu yimid horta waa ciidan beeleed dadkana waa dadku beelaha cid aan beelaha lahayn gobolka soolna ma iman bari beelaha dega sool iyagaa leh dadka sool degaana bari iyagaa leh dadka garowa dega sool iyagaa leh iyo sanaag iyo caynba dadka
soo sanaag yacayn degaana nugaalna iyagaa leh iyo garowe mudugna iyagaa leh dadka mudug degaa iyagaa leh soo sanaag yacayn mudug bay leedahay marka dadkani waa dad jifooyin ah oo walaala ah oo wada dhashay oo xodo leh oo dhaqan iyo isir iyo dhalasho walaalnimo ka dhaxayso marka dad walaala maxay soo gurmadeen wax meesha qabata ma aha waa midda labaad waxa weeye dhaqan Soomaaliyeed oo hore oo jira weeye beeliba beesha ay isir xigto way wadaag yihiin inay u hiiliso marka hiil uga baxnaato marka arrinkaasi arrin lagu eedayn karo dagaalkan ma aha maxaa beel ay wadaag tahay oo isir wadaag tahay ugu gurmatay eedaasi eed muuse ka gadmaysa iyo ka gadi karaayo caalamka ma aha waa isku mid dadka jooga goolgool baa lasoo gurmadaa waxay la mid tahay oo kale tusaale ahaan iyada oo hargeysa inta la weeraray ama beelo kale soo weerareen ay reer burco u gurmadeen marka reer burco ma odhan karno maxaad u gurmatay hargeysa waayo isir bay wadaagaan